Assalaamu calaykum kasoo dhawaada mar kale ayaa Noora Cooking dhamaantiin waa idin salaamaya maanta waxaan sameynaynaa granola aan sameynaynaa cerealka la dhaho sida u sameynaa hadda idin tusaaya waxaan jarjarayaa hal koob oo loos ah looskan waxaa la pecans loos walbo looska ay haysatid yani ku darsan kartaa waa hal koob kan waxaa waaye maple syrup waaye maple syrupka geeda laga soo miiraa ma aha pancake syrupka oo anti jemima ay ku sawiranto oo galeeda laga sameeyo ma aha this waxaa waaye geed yani oo maple la dhahaa jiro oo yani intii la duro laga soo miiro asiga xataa si quality fiican mid waxaa jiro maxay ahayd zaid loo soo kariyay mid zaid loo soo karinin grade A iyo grade B hadda meeshan waxaa ku jira 3 koob oo mashaari ah waxaa waaye 420 gram waaye iyo hal koob oo cranberry ah iyo maxaa la dhahaa timir iyo maxaa la dhahaa geedka shiidan qumbaha iyo sokorta brownka ah iyo loos waaye looska waxaa waaye adiga hal koob camal waaye sokortana waxaa waaye 1/3 وأنا قنطن يلح جران عمل واي سكرتا كان وحاواي كوب 6 لو قيبي هل قيب واي إن جيت كأكو دراي ملبك عمل إن شاء الله انت اسكو درايا هذا اسكو ولا قايا كرانبيري كانوا حاواي هل كوب واي أسجنا أما سبيبا كو بدلن كرتا كرانبيري هدي عادن هي سنين saliid ma ku darin aniga qofka raba saliid wuu ku darsan karaa qofka nacaayo sokorta moos uu jijibin karaa oo ku darsan karaa iyo malab intuu isku jijibiyo ku darsan karaa qasab ma aha inaad sokor ku darsatid but this is aniga sidaan jeclahay waaye weelkaas hadda ku shubay ovenkan gelinayaa 350 oo yani 15 daqiiqo camal aan sugayaa waa 176 celsius ka meeshan waxaa waaye waxaan tusaaya waxyaabihii aan kasoo sameeyay in aan tusaaro waa productigi waa kuwana productigi oo dhan aniga waxaan jeclahay markii aan kan sameynayo waxaan soo gataa timirtaas qalalan aan jeclahay timirta zaidka u qoyan ma jecli timirta iyo wixii oo dhan waa ka reebay ma ku dubaayay looski iyo mashaaridii unba isku dubaaya iyo sokortii waxyaabaha kale way ka gubanayaan hadii kale ma ku daraayo markaan ka soo dajiile gadaal uga daraaya maadaama wax karis u baahan aysan ahaynin ka gubanayaan hadii meesha saa galisid waa garata Soomaha hadda waa ka soo bixiyay after 15 daqiiqo kadib ilaa 20 daqiiqo waxay ku xiran tahay adiga ovenkaaga ee ku xiran tahay waa gadinaysi hadii kale dhinacyada dhan uu ka gubanaya waan ku celiyay hadda xogaa kadib aan ka soo bixinaya adiga waxaan sugayaa 15 daqiiqo kale ama 10 daqiiqo kale ina fiirisid waaye si uu kaaga halaabin timirti waan jarjartay waa kana uu ka soo baxay hadda markaa ovenka uu ka soo baxay saanu noqday gaduudtay hadii aad rabtid gaduud saan ka sii daro in uu noqdo adeeg kugu xiran tahay marka waa kaas diyaar waaye hadda alaabti kale aan korka uga daraaya waa waxa waaye timirti aan googooynayo waaye iyo cranberry waaye sabiibna waa ku darsan kartaa sidaan kuugu sheegay qumbihii qalalna waaye qumbahan mid mac waaye hadii aad rabtid mid aan sokor lahayn ku darsan kartaa waa kaas hadda alaabtan quruxda badan meesha ka soo baxday oo kala aragtaa ilmaha kuugu isnaagareyn karaano oo quraac ka dhigan kartiin maxay ahayd cereal ahaan u cuni kartaa reerkeyga aad ay u jeceliin mar walba iga baryaan noo samee hadda waa kana marka waatana ayadoo laga sameeyay quraac yar oo dhagdhag ah iyo snack ciyaalka markay iskoolka ka imaadaan camal snack ahaan u siinaysa markay meel aadaysiin ziplock-gaas u shubaysaa xoogaa cunug walba uu qaadanaa ilmaha aad ay u jecel yihiin macaan waaye borotiin ay leedahay kaala arag waaye gurigaagana ku samaysatay wax guriga lagu sameeyay maxaa ka fiican okay quraaca ka dhigan kartaa snaaga ka dhigan kartaa hadii subaxii quraacda waxa uu cuni kartaa gariig yogurt ciirta fadhido
oo Greek yogurt kala dhacay ananas aan ku daray fruitka rabtida ku darsan kartaa cerealka garnoolaha korkaan ka saaray goos qabsi dadka qaarkood waxay jecel yihiin quraac gooska qabanayso waxaan gooska qabanayna dad jeclayna jiro okay macaan waa kaal arag waaye Greek yogurt caloosha u fiican yahay yogurt ko dhan ma arkin oo ciirta caloosha u fiican ta bacteria fiican ku jirto marka ha lagu dadaalo insha Allah videogan hadii aad ka hesheen taam saabsiya hal subscribe garee hadaa ku cusubtaa channelka assalaamu calaykum